waxaan sheegnaa dadka reer Somaliland horta marka ugu horeysa Soomaaliya dawlad kama jirto qalad weyn bay ahayd inaynu nidaaho Soomaaliya la hadlina dawlad aan jirin in la hadlo maaha laga bilaabo waxaan jecelahay madaxweynuhu ku soo noqdo in qaraar la soo saaraa dawlad soo saartaa la yiraahdo wax wada hadala oo Soomaaliya la yeelana maadaama aanay jirin dawlad Soomaaliyeed oo dadka ka wakiila oo nala siman oo dadku soo doorteen oo cashuur qaadata oo xuduudiyeeda ilaalisa oo badeeda ilaalisa aanay jirin la fariisamayno Somaliland iyo Soomaaliya laba dalbe ahaayeen mid waa jira kii kale ma jiro ka kale markuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u yimaado oo waliba gacan ka geysanayno ayaan wada hadli doonaa wada hadalka Somaliland ay la leedahay kolba kooxda timaada xamar waxay nagu qootay dhibaato marka wadamada u tagno aan ilaahay waxaan jecelahay inaanu dal jiri jiraan nahay 60kii iyuu ka baxay in itiraafnaan baan rabnaa waxay ilaahan dawladda idin wada socon Soomaaliya de ka hor dhicmayno bilow heshiisyaane marka dhibaato bay noo keentay waxa adduunka dawladaha itiraafada dawlad itiraafta member states ay itiraaf failed state dawlad aan jirin oo aynu dawladii aynu isleeyahay ka adkaanay ka bacay dawladii ma jirin marka waxaan leenahay wada hadalada hala joojiyo xiriirku hala joojiyo biidihina aleedin dawladda Soomaaliya ma jirto maanta ciyaalkan Koreeda ah dadkii dalka u badnaa dawladii afweyne nacabka ahaa riday ficil tamiyaan ayuu ka soo dhaxbaxay inkan yar la ilaaho farmaajo fiil Soomaaliya waxa fadhiya wax weeye farmaajo عود جمالك دهارات يا عبد العزيز عبد السعيد نكايلا أفرتين ما فديها waxay ku tashadeen inay Soomaaliya dib ugu celiyaan kacaanki waa caruurtii kacaanka ee dadaabiyo laga qaaday xiriiqa qaxoontiga ee Kenya oo wax ku soo bartay halka oo ciil qaba waxay isticmaalayaan laba arrimood mid waa mid lacag ba isticmaalayaan wadamo shisheeye ka heliyaan mid waxay isticmaalayaan nabad sugidii wadamada dictatorska iyo ciidamo shisheeye waa taasi keentay in baydhaba 15 qof ay ku dilaan qofkii doonaya ay saaraan ninkii dadku doonaya xiraan waa ta keentay in maalin kasta xamar ay dadka ku laayaan dadka bajaajka wada ku laayaan waa ta keentay inay guriga ugu dhacaan dadkii xoreeyay Soomaaliya ka xoreysiyad bare wata keentay inay meedkooda xitaa cidla ku aasaan waxay markaa isku hamiyaan waxay yiraahdaan markaan ka soo adkaana dawlad goboleeda Somaliland gelin ugu qaadanayso ku sheekaya waa afartayna yaryar iyo inta caga ku qaataan hadaba waxa siiyay dhiiridnimada waxa siiyay waxa weeye maamul xumaanteena kala qaybsanaanteena uqaasheena salaadiinteena qabyaalad ma wax kale hadlin waxa leenahay madaxweynaha waxaan leenahay dadka hamide madaxweynaha waa dadka mideeya daldalaaci ka soo qabtay ku dhacay doorashadii ka kaba